السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كيني داهر إيو دلكو هويو. برنامج كاسي داهر إيو دلكو هويو وحيد كيما دا مقالة بيميغام oo ka tirsan dalka boqortooyada Ingiriiska. waxaana barnaamijkaasi daahir iyo dalka hooyaan ku soo qaadanaa had iyo jeerba waxyaabaha aan isleenahay shacbiga reer Somaliland ayaa ka faa'iideysanaya. toddobaadka kan barnaamijkeena daahir iyo dalka hooyo waxaanu ku soo qaadan doonaa oo halka kan stuudiyaha ila fadhiya gudoomiyaha ururka guryo samo ee qurbajooga deegaanka gobolka Togdheer iyo waliba Hawdka oo iyagu baryahan gomba ku hawlana sidii ay deegaankaasi ay u caawin lahaayeen iyadoo imika qurbajoogu meel kasta uu joogaba oo ka qayb qaataan horumarka dalka jamhuuriyadda Somaliland taas oo nin waliba halkiisa uu ka guntaday. haddaba Cabdirasaaq Cali Kildi oo isagu san horeba idinku sheegay gudoomiyaha ururka guryo samo ee qurbajooga deegaanka gobolka Togdheer iyo Hawd ayaan jecelahay bal toddobaadka kan inaan ku soo qaato barnaamijkan oo aan ka wareysto bal hawlaha ay u qabtaan dhinaca shacbiga deegaankaasi. Cabdirasaaq waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland xaruntiisan uu ku leeyahay magaalada Birmingham. wad mahadsantahay aad iyo aad marka ugu horeysa waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha iyo sharafta leh aad ugu soo dhaweyseen waliba qaybta Birmingham iyo guud ahaanba haweenada TV-ga qaranka Somaliland iyo shaqaalihiisa aad iyo aad bad mahadsantahay. waa tahay Cabdirasaaq aad iyo aad baan aniguna kugu mahadnaqayaa runtii waqtigaaga qaaliga oo nasisay adiga oo goortaasi ka yimid deegaanka amba gobolkaasi Liverpool oo runtii aan aad iyo aad kugu mahadnaqayo inta dheer barnaamijkaasi u soo jeexday inaad halka kan maanta aanu wareysigan kaaga qaadno. waxaan jeclahay dadweyne ku weydiiyo ururkan guryo samo oo iyagu markaasi qurbajooga deegaanka aynu sheegnay ay ka kooban yahay bal hadda hawlaha ay u adeegaan iyo shacbiga reer Somaliland halkaasi degan bal hadda waxyaabaha u qabataan bal hadda ka war. marka ugu horeysa aad iyo aad baad daahir u mahadsan tahay dadaalka iyo gubaabada iyo wacyigelinta aad shacbiga reer Somaliland guud iyo dibadba aad u wadid hawsha aad u wadid waa kugu mahadnaqaynaa. marka labaad haddaan anoo ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga aad nasiiseen ururkan guryo samo waxaanu aasaasnay 2005 xilligaas oo dhammaan qurbajooga reer Somaliland guud ahaanba ay dareemeen in ay ka qayb qaataan horumarka dalkii Somaliland kadib markii la yagleelay muddo dheerna ay dhisneed qaranka Somaliland iyo dawladdiisu shacbigana ay khasab ku noqotay inuu qayb lixaad la ka qaato dadkii gudaha ay kaga yimaadeen inay wixii ay wax la qaban karayaan ay la qabtaan. markaas ujeedada ugu weyn ee ururkan u aasaasnay wuxuu ahaa dhinaca horumarka bulshada. marka xilliga markii aan ururkan sameynay
ururkan oo ka kooban dhammaan qurba jooga deegaanka aan idiin sheegi doono magaalooyinka ay ka mid yihiin dhagax dheer iyo dheryaley iyo taalabuur iyo eegi iyo baaldhi ay ka kooban yihiin deegaanadaasoo qaarna ay Ethiopia kilka sharaad Ethiopia ka mid yihiin inta kalena ay Somaliland gudaheeda ku jiraan deegaankaas oo dib u dhac badan uu ku dhacay xilligii halgankii dalka lagu xoreynayay SNMta kaas baa waxay noqotay reason baa marka sabab baa timi ah in deegaankii maadaama iminka ay dadkii horumarkii laga shaqeynayo in dhulkii lagu noqdo wax laga qabto sidaasaanu u dhisnay sidaasaanu ujeedadeeduna taasay ahayd taasaanu ilaa hadda ku hawlgalno cabdirasaaq saad sheegtay in waqtigaas waxaad tiri deegaankaasi waa waqtigii wuxuu aad dib u dhacay waqtigii lagu jiray halganka mar dhuntan sheekaysan waxaad sheegtay xataa waqtigii Cabdilla Xasan inaad laftigeyga deegaankaasi dib uga dhacay waqtigaasi oo hadda ilaa waqtigaasi ay halkaasi ahayd meel hawlaha laga waday waxa weeye waxa u jirta deegaanka dadka deegaanka ka soo jeeda ama gobolka buuhood hoos yimaada deegaankaasu halkaasna waxay xaruntii Sayid Cabdilla Xasan uu ku aasaasmay ama xooggiisa weyn ay joogtay sida aan horeba kugu sheegay odayaashii ama raggii bundika u ahaa halkankii Sayid Cabdilla Xasan ama ka qaatay qaybta libaaxle deegaankaas qayb weyn buu ka qaatay waxaana kamid ahaa haddaan soo qaato tusaale ninkii saadka ama qaybta militariga Sayid Cabdilla Xasan xilliga hogaaminayay oo ina shixiri ahaa oo markii uu ina shixiri uu ka tagay Sayid Cabdilla Xasanna aad ugeydeen dhaawicii iyo dibtii soo gaadhay quwadii Sayid Cabdilla Xasan sayidkuna markii dambena caruurtiisii iyo dadkiisii uu gabayga ku lahaa waan caruurtaadii waa leynaya marka meel taariikh leh waa meel taariikh leh oo Somaliland qayb ka ahayd oo xoreyntii Somaliland lagu xoreeyay qayb ka ahayd guumeystihii marka taariikh dheer bay ku leeyihiin Somaliland taariikh kale oo dheer baa jirto de wax ka soo jeeda madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo absolutely walaal ku dhashay Somaliland saad sheegtayba wuxuu ku dhashay ama isaguba inoo sheegay CV-giisana ku jirta inuu magaalada Dheryaley ku dhashay magaalada Dheryaley iyo Dhagaxdheerna aad iyo aad bay isugu dhow yihiin deegaanahaana madaxweynuhu halkaasuu ka soo jeedaa annagoo madaxweynaha uu madaxweyne qaran yahay iminka oo ummadda reer Somaliland oo dhan uu madaxweyne u yahay oo qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaanteed uu yahay odagii astaantii qaranka Somaliland uu yahay haddana deegaan ahaan sida madax kale oo sharaf leh oo qiimo leh oo ay deegaano kale uga yimaadeen waa saa sheegtay madaxweynuhu deegaankaas uu ka yimi deegaankuna waa deegaan aad iyo aad u ballaaran sidan waran ku hayo waa dhul waa deegaan xoolo leh dhulkaasi iyo talafteedu waan malinayaa inuu xoolo aad waxa weeye magaalada Burco oo caasimada ah gobolka Togdheer waxa weeye waa xarunta kaliya ee magaalada gobolkaas uu leeyahay sida daraadeed wixii awood lahaa ama dhaqaale lahaa ama iska caabin karayay nolol maalmeedku waxay soo galeen magaalada soo galeen caasimada gobolka Togdheer wixii baadiyaha ama magaalada dibadeeda joogayna waa dadkii ay u saamix weyday ama dhaqaalaha noqoto ama fursado kale ha noqotay in magaalada soo galay taasaa keentay inaan la ilaawin dadkii iyo deegaankii laga yimi la ballaariyo horumarka oo la gaarsiiyo taasaa halkaan ka duulayna anagu waa halkaas waxaa kaloo iyaduna dhibaatada kale ee dadkaas soo gaadhay waxaa kamid ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa gudoomiyihii ugu dheeraa waqtigii xilliga SNMta taas waxay dhaxal siisay deegaankaas in culays badan dawladii Siyaad Barre ay saartay maadaama ay ku dhaqamisay dawladaasu cidii markaa ama hogaaminaysa SNMta ama kamid ah intaakadku ahaa marka deegaankaas dabadhac ugu weyn wuxuu ka soo gaaray halkankii SNMta uu ka soo gaaray markii dambe qaranka Somaliland lagu soo noqonayayna
dee waxaynu ku mashquulsanayn inaynu goboladii aynu dhisno marka fursad maynu helin inaynu tuulooyinkeenii iyo hawdkeenii aynu horumar gaarsiino. marka haddaad tihiin dhalinyaradii deegaankaasi iminkaa baraarugtiin muddada imika 15 sano ah bal hawshaa waanu wadnay waxqabad badanna waanu itaalkayaga waanu inta awoodeeda waanu muujinay oo hadday caafimaadka tahay iyo hadday waxbarashada tahay iyo hadday tacliinta tahay inta waan soo socon doonaa. magacan guryo samo maxaa ku doorateen? wallahi magaca waxaan filayaa guryo samo dee sida ka dhadhamaysa waxa weeye waa degaan nabadgelyo ah oo barwaaqo ah oo haddii eebidikeeda leeyahay wanaagsan oo dee sharaf leh oo dadka deegaanka iyo markaanu qiimeynay magacyo badan baa la keenay oo lasoo gudbiyey dee markii waxaa loo batay in kaal la qaato waana magac aad wanaagsan. magac waxaan filayaa inuu ku habboon yahay horumarka. bal haddaba cabdirasaaq bal waxaad ka warranta haddaba bal hadda waxaad qabateen ilaa imaka oo aad deegaankaasi ka qabateen iyada oo si aad noo sheegtay deegaankaasi uu ka mid ahaa deegaamada Somaliland ee dib u dhaca amba horumarku aan weli si fiican u wada gaadhin. bal ilaa imaka waxyaabaha u qabateen gobolkaasi deegaankaasi maxaa ka mid ah? haddaan ku horeeyo waxbarashada deegaanku wuxuu lahaa culimadii ugu waaweyneed xilliga deegaanka aan ka hadlaya Dhagaxdheer iyo Dheryaley iyo Taalabuur iyo deegaanka hawdka joogtay beeshu waxay ahayd dadka ugu culimada badan bay ahayd. haddaan aan wax ka taataabto waxa weeye culimadaas faraha badan leh ee dalka wax ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa ilaahu naxariistee Sheekh Maxamed Yuusuf ka mid ahaa, Sheekh Xuseen Sidiiq baa ka mid ahaa, Sheekh Walaalayaa ka mid ahaa, Sheekh Xaaji Nuur Agsaka waa ka mid ahaa, Sheekh Maxamed Dhawaaq baa ka mid ahaa, Sheekh Qaadi Maxamuud baa ka mid ahaa. waqtigaas ka horeeyay 60kii culimada ugu waaweyn deegaankaasi ka soo jeeday. marka waxay ku tusaysaa inay waxbarashada fac ku lahaayeen qoto dheer. laakiin halkanka ama xilliga wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya dhibaatadu timi taasaa keentay in waxbarashada hoos u dhacday. sida awgeed baan waxaanu dhisnay iskuul hoose dhexe waxaanu ka dhisnay magaalada Dhagaxdheer, waxaanu ka dhisnay iskuul hoose dhexe magaalada Dheryaley, waxaanu ka dhisnay iskuul hoose waxaanu ka dhisnay Taalabuur, waxaanu iyadana aanu qayb ka qaadanay deegaanka kiilka shanaad ee Soomaalidu tagto aynu deganahay inaguna qayb baanu ka qaadanay iyada oo ay dalka deegaankaas uu Itoobiya ka tirsan yahay oo maamul iyo nidaamkiisa ay leedahay la raaco. qaranka Soomaaliland aanu jeclayn inuu faragelina ku sameeyo deegaanada kale. haddana mar haddii dadkeenu degan yahay qayb libaax laanu ka qaadanay. marka waxaa kaloo iyadana hadda noo suurta galay inaan deegaanka ka hirgelino secondary schoolka ugu weyn ee deegaanka Suuyaara kalo oo hadda dhamaaday oo dawladda Soomaaliland ay dhistay laakiin aanu ku lahayn qayb ku lahayn dabagalkeeda iyo ka hawlgelisteeda. iskuulkaas uu dhamaaday. waxaas xagga waxbarashada waxaan u maleynayaa intaas iyo in lamida ayaan ka qabtay. bal iyadana waxaa jirta in saad ii sheegtay deegaanadaasi waa deegaan runtii aad iyo aad u ballaaran. bal xagga caafimaadka haddaad idinku wax ka qabateen iyo haddii wasaaradda caafimaadku ay wax ka qabatay ee Somaliland bal iyadana dadka caafimaadkoodii iyo balada wax loo qabtay bal iyadana ogaantaa maxaad qoranay? waxaanu sameynay guddi baanu ka sameynay gudaha joogta oo dabagasha wasaarad kasta u tagta oo codsi geysata oo u sheegta baahiyaha deegaanka ka jira. guddidaasu waxa weeye Somaliland waa qaran hadda tisqaaday dhaqaalihiisu inkastoo aan la aqoonsan oo duruufo badan ay jiraan haddana dawladda waxaa ka go'an inay ama kuwii ka hor dawladii ka horreeyay ha ahaadeen ama kuwan kan dawladda hadda joogtaba ha noqotay waxaa ka go'an wixii ay dadka u qaban karayaan inay qabtaan. codsiga aan gudbinay waxaa nooga suurta galay markaa
in aan MCH laga fuliyo magaalada Dheriilay MCH na health center tadhaxdheer maaha MCH ma waa health center way ka weyn tahay MCH anaguna aanu qayb dhisnay markii aanu qaybtii hore dhameynay dawladuna ay qaybtii labaad dhistay hay'adaha wadanka joogana ay iyaguna qaybtii saddexaad ay dhiseen marka xarun caafimaad oo weyn oo shaqeynaysa ayaa dhexdheer ka dhisan Dheriilana sidaas oo kale iyadoo aan wali aanay hawl gelin haddana buildingkii iyo qalabkii iyo hawsheedii waa gabagabo iyada Taalabuur magaalada leeyahdana codsiga waanu gudbinay waxaan hadda ka rajaynaynaa anagoo kala siman qaranka iyo ummadda reer Somaliland oo raalina ka ah hadii la yiraahdo magaaladaas ay ka horeysa raali baan ku nahay hadii la yiraahdo waa waqtigeeniina waa ka faa'iideysanay waa iyada ka warta xagga bal wadooyinka in deegaankaasi bal wadooyinkiisa ka war iyaga miyad wali wax qorshe aad u samaysay wallahi wadadu ma sahlana waxaan maleynayaa 100 iyo ama 200 kilomitir inay magaalooyinkaas gobolka Togdheer caasimada gobolka u jiraan rafaad badan iyo dib badan baa lagala kulmaa sababta keentay inaan xarun caafimaad ka sameeyay deegaanadana waxa kamid ah qofta dumar ta ugu sahlan waxa weeye qofta dumara ama hooyada ku umusha ama ay ku adkaato inay sida caadigeedu umusho way ku adag tahay in gaari la soo saaro in habeen iyo maalin la soo guurayo burca la keeno taasaa keentay bal ugu yaraan in caafimaadka degdega ah in laga hirgeliyo deegaanka wadooyinka haddaan ku soo noqdo wadooyinka dawladogto wadada imika aynu dawladdu inoo dhagax dhigtay burca ka baxaysa gobolka Togdheer ka baxaysa ee sanaag tagaysa baadad ku mashquulsan yahay u iman doona iyada marka taas wali idinku qorsheeyeen wali wax qorshe oo taa xagga wadooyinka way jiraan abaab iyo isku tay la wada laakiin kulliba priority waxaan kala leeyihiin marka ay caafimaadka iyo waxbarashada aynu ilaahi galaan kale ku darsan karno ayaynu ku darsan waxaad ka wartaa in haddii aad tidinku qurbo joogii deegaankaasi u dhashay wali idin cid tagtay ma jirtaa oo aad soo eegtay mise fariimo ma idin soo gudbiyo saasaad qowl gashaan waanu ka hawlgalnay in dawladda iyo hay'aduhuba ay nala arkaan waxaan ka hadlayno marka idinku yani ma tagteen marka waanu tagnay anagu damar walba waa deegaankayga waa tagnaa oo xidda markaan booqasho dal ku tagnay iyadana waanu soo sahaminaa waanu tagnay aniga gudoomiyuhu laba jeer aan Dhagaxdheer iyo Dheriil iyo Taalabuur iyo deegaanka tagay dawladdana wafdi ballaaran oo markii ugu dambeysay hadda aan ka imanayay waxaan la socday wafdi uu hogaaminayo bada saabkii hore ee gobolka Togdheer wasiirka hore waxbarashada Geedoole taliyaha booliska gobolka Togdheer taliyihii hore gobolka Togdheer intuba waxay dhagax dhigeen mid walba qaybtiisii yuu dhagax dhigay taliyuhu saldhigii booliska yuu dhagax dhigay wasiirka caafimaadku xarunta caafimaadku dhamaystirkeedii kasta nala joogin oo wafti ka horeeyay oo ku baxay oo dhagax dhigay wasiirka waxbarashaduna secondary schoolkii dawladdu ay qorsheysay in la dhiso uu dhamaaday marka mar kasta xilliga munaasabka ah ee suurtagala xagga madaxda qarankana ka suurtagalaysa annagana naga suurtagalaysa haday noo hirgasho waan tagnaa marka wixii dhagax dhigay ilaa maxaa ka hirgelay secondary dawladdan Somaliland ee maanta Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo madaxda ka yahay waxaad moodaa in ay ballamaha ay qaadayso inay inta badan fuliso sababta waxa weeye anigu deegaanka aan gudoomiyaha horumarinta ka ahay marka aan ka soo qaado wasaaradda iskuulkii secondary schoolkii Dhagaxdheer ay dhagax dhigeen uu dhamaaday saligii booliisku uu dhamaaday xarunta caafimaadka labada magaalo way dhamaadeen marka waxa kale harsanna dee xilliga ay iyagu isleeyihiin ama anaga qudheedoota aanu ku tarakalkayaga waxa weeye markaad wax qabsatid ayaa dawladda wax kula qabanaysaa marka sida aanu u fahnay waxa weeye
dadku marka ay deegaanku wada shaqayntiisa iyo horumarkiisa iyo waxaad soo jiidanaysaa dad badan oo ama dawladda indhaheeda markay aragto waxqabadka iyadoo waxbay ku tarsanaysaa laakiin haddii la iska fadhiisto oo la yihahdo cid baa wax soo wataa waxaan filayaa in cidina wax ku keeni waa tahay adigoo aada iyo aada umahadsan daawadayaal barnaamijkaasi waa barnaamijkeenii daahir iyo dalka hooyo barnaamijkaasi daahir iyo dalka hooyo alaaba telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaa ka daawataan saacadan aan idin hadlayo oo kale waxaan jeclay inaan ku weydiiyo kale waqtigan imika barnaamijka aynu qabanayno waxaa ka socda shir aan filayo inuu maanta ka furmay waqtigaasi barnaamijka aynu qabanaynay oo bishu ay tahay 14 shir ayaa ka socda dhagax dheer shirkaasi waxaa sidaad ii sheegtay ay ka mid tahay waxyaabaha bulshada lagu horumarinayo balda arrintaas ka war daahirow waa sax weeye shir baa ka furmay magaalada dhagax dheer shirkaasu muddo dheerba waa la saadaalinayay qabsoomidiisa waxaana filayaa ama sida wararka ugu soo gaadhay inuu si wacan oo sharaf leh oo sidii la filayay uu qabsoomay shirkaasuna laba wax buu daaran yahay oo qabashadiisu ay sabab ahayd waa horumarka in laga qayb qaato oo la xoojiyo dadaalka guryasamo iyo ka gudahana la xoojiyo talabaad oo ah midaynta inkastoo deegaanka dadka soo jeeda ay dhaqan u tahay midnimada iyo wadajirku u dhaqan u yahay wax anagu aanu sameyn aanay ahayn wax odayaashii hore iyo raggii hore ay sameeyeen oo dhaxal wanaagsan ka tageen oo reerkaas uu ku suntan yahay midnimo iyo wadajir caan ay kaga yihiin deegaanada kale ee dadka walaalaha ee dariska leeyihiin haddana in la xoojiyo oo la sii ilaaliyo maadaama oo waqti adag yahay seven iska hawl badan uu yahay dadkina kala dafaraaruqay oo adduunka meel kasta kala gaadhay taasa waxay keenaysaa haddaan tusaale daahir usoo qaato samarkii dhawaato waxaan tegay dalka somaliland baan tegay magaalada burcaan tegay waxaanu isugu nimi dad gaadhaya ilaa 100 qof oo qurba jooga oo haddaanay ka badnaynba intaan anigu aan arkay baanu burca isugu nimi dadkaa aanu isu nimi 10 luqadood oo kala jaada iyo carruurta ku hadlaysa qaar jarmal bay ku hadlayaan qaar holandiis bay ku hadlayaan qaar ingiriis bay ku hadlayaan qaar carabi bay ku hadlayaan hawshaasu hawl sahlan maaha marka dadka caynkaasa in la isu keeno oo xitaa ugu yaraan isbarashadoodu inay dadka iska bartaan oo hadday iska soo baxaan ay iskartaan faa'iidada ugu yari waxaan u malaynayaa inaanay taa ka yaraanayn marka shirkaasu ujeedadiisu haddaan kuu faahfaahiyo intaasu daaran yahay siyaasad shaqa kuma le wax siyaasada shaqa kuma le dadka deegaanka degana waxaa ka go-an ilaalinta nabadgelyada iyo qarannimada somaliland cahdigii iyo ballantii la galay ee ahayd in somaliland uu qaran noqdo kaas buu taagan yahay waxaa kaloo ka go-an inay nabad iyo wanaag iyo sharaf kula noolaadaan dadka dariska ah ee walaaladooda ay deegaanka yihiin taasoo way ka go-an tahay intaasu baa la xoojinayaa baan filayaa oo la qodobeynayaa oo go-aan lagu gaadhaya laakiin wax intaa ka baxsan ma filayo inay jiraan waa tahay cabdirasaaq aada baad u baahsan tahay haddaynu hadda waa soo geli doonaa sidii marka hore aan carba ku dhifanay wadadii ceergaabo waad og tahay madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay wadadaas dheer runtii imika meel fiican ayay maraysaa degaan ahaan idinku saa uga qayb qaadataan arrintaas wallahi masalan dee deegaan waxaa loo qaybsaday lacagtii qaadhaanka UK markii lacagtii kusoo lagu soo beegay waa tii la qaybiyey annaga magaalo kastaaba waxay noqotay dee guryasamo wuxuu ka mid yahay dadka shacbigaasa horumarka ka qayb qaadanaya ayuu ka mid yahay magaalo kastana waxaanu ku gubaabinay inay qaadhaanka wadada ceergaabo ay ka qayb qaataan sababtu waxa weeye
wadadaas waxay u noqonaysaa horumar iyo dhaqaale kusoo kordhinaysaa labada gobol, gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheerba. waxay isku xidhaysaa dadka deegaanka degan bay isku xidhaysaa. waxay kale oo isku xidhaysaa nabadgelyada qayb bay ka qaadanaysaa. sababta waxa weeye haddii wadooyinku waxay qayb ka mid yihiin nabadgelyada qayb bay ka qaadanaysaa. oo gobolka Sanaag oo kale dee go'doon buu gelaya haddii aanu wado helin uu kusoo gaadho gobolada kale Somaliland. marka taas waxaan filayaa inay kuleysamo qura maaha dhammaanteen ay tahay waajib ina wada saaran oo ay tahay inaynu ka soo baxno. oo weliba waxaan hadda anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan intii isbedelku u yimi dowladdii wasiiradii isbedel ku yimi, waxaan anigoo kaga faa'iidaysan furta aan oo lahaa arrintii hala laabo halkiina halaga wado wax yar baana harsane intaa dhameystiro. cabdirasaaq saan la socono imika waad ogtahay oo in dalkeeni waxa laga soo sheegay abaaro fara badan, bal markaasi in gobolkaasi Togdheer dhinaca hawdka imika deegaanadaasi iyaga maxaa ogaantaa, maxaa bal ka warayga? roobku si wacan ayuu hawdka uga daay, laakiin qaybo ka mid ah gobolka waqtigii hore iyo qayb ka mid ah Sanaag iyo gobolka Soolba qaybo ka mid ah abaartu roobku uu seegay sidii la rabayna ugama diin. taas waxay keentay in reer guuraagi u hayaamaan deegaanadii roobku u helay. waxaan aniga oo fursadaas ka faa'iidaysanaya, waxaan dadka ehelka ah wada dhashay abti iyo adeer iyo xidid iyo xigaalba ah dhaqanka Soomaaliyeedna daaqsimeedku ka dhaxeeyay in ay dadka wixii deegaanada ay loo hayaamay soo dhaweeyo, la isdhexgalo, cid walba cidii ay wax ku dhaanto ay soo dhaweyso. nabadu cid walba dambe u tahay. nabad wax wanaag lagu helo mooyaane xumaan laguma helo. nabadu waa hoyga cid walba ay ku nasato. cibaadada iyo diinta baan xasilayn iska badaa wax kale. masaajidkan la geli karin haddii colaad iyo nabad laga shaqeeyo. aada iyo aad waa kasoo horjeednaa cid kasta oo nabadgelyada ummadda shacbiga walaalaha reer Somaliland dhammaantiin. waa tahay cabdirasaaq, barnaamijkii gabagaba ah adigoo fursadan aan ku siinayno, maxaad fikrada ee aad soo jeedin lahayd haddii adigoo aad amba ha noqoto xagga qurbo jooga ama ha noqoto dalka gudihiisii, maxaad wax fariin oo afari lahayd ma jira? aada iyo aad ba daahir u mahadsan tahay fursadda qaaliga siisay. laba qodob baan anigu kusoo gunaanadi lahaa hadalkayga. horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa axsaabta qaranka iyo xukuumaddaba waanu salaamaynaa. annagu haddaanu shacbiga nahay waa noo siman yihiin. xusbiyaduna waa xusbiyo qaran. saddexdaa xusbi qaranna dee waynagii u foodnay inay tartamaan oo ay xusbiyo qaran noqdaan. sidaas ixtiraam iyo sharaf iyo mudnaan bay naga mudan yihiin. waxaan dadka bulshada waxaan odhan lahaa xusbiyadaa sidii aynu u samaysanay ha loo daayo. sidii aan u samaysanay ha loo daayo. xusbigu waa inuu qoyska uu nin walba fikradiisa iyo aragtidiisa, xusbiga qoyska 5 qof ka koobani waa inuu 3 xusbi mid walba ku isleeyahay kaasaa danta qaran ku jira uu codeeyaa oo ka mid noqda. laakiin aad iyo aad waxaa muuqata dhaliil baa muuqata. dhaliishaas waxa weeye in xusbiyadii si kale qaab kale qariban hadda aad muddo in loo wado. aad iyo aad baan anagu shacbiga nahay uga soo horjeednaa. sababta waxa weeye nabadgelyada iyo qarannimada Somaliland qiimo weyn bay noogu fadhidaan. kana yeeli mayno cidna ka yeeli mayno nabadgelyada iyo qarannimada cidii wax yeelaysa ka yeeli mayno. waayo waxa weeye dadkan dhib badan bay usoo mareen, dhibaato badan baa kusoo gaadhay. waxa weeye in maanta 40 sano dib loogu celiyo waa ayaan dare weyn weeye. anigoo taa ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay xusbiyada laftoodu
ha ka koreen oo barnaamijyo siyaasiyaho ay dadka ku kasbanayaan ha keeneen. laakiin in marba degaan la tago oo qaab kale dadka loogu dhigo taas waxay inaga xumaysa mooyaane waxbayna tarmayso. taas waa qodobka hadda halkaa ku dhaafo. qodobka labaad waxa weeye ummaddu dadkeeda halyeeyada ah ama magaca ku leh ama sharafta ku leh ama astaanta qaranka ah haddii karaamada laga dilo waxa weeye qarankana karaamada ka dhimanaysa. xaaji cabdiwaraaba ugu weyn somaliland cimrigiisana wuxuu kusoo qaatay nabadgelyada iyo wanaagga iyo sharafta somaliland. wuxuu sharaf ku yeeshayna waxa weeye nabadgelyada iyo wanaagga uu ka shaqeynayo. madaxda qaranka kamid hadda haysata axmed silaanya kamid ah, xusbiyada qaranka kamid ah, iyada oo qofku barnaamijkiisii wato oo xusbigiisii u madax banaan yahay oo in haddana wixii dhaliila in dhaliisho ay noqotaa dhaliil system ku saabsan oo la dhaliilo. haddii xukuumadda tahayna waa in la dhaliila iyadoo systematic lagu dhaliila yahda waxaasay xukuumaddu halkaana waxbay ka khalatay, halkaana inay saa u dhigtaabay ahayd. anagu barnaamijkan wadana waa barnaamijka taasi ku habbooneyd. xukuumadduna inay xasaabta ehel ka dhigato oo soo dhawaysato oo haddii xasaabtu ay wiiqmaan qarankuna waa wiiqmaya. marka anagu waxaan anigoo hadalka soo gunaanada iyo kusoo gabagabeynaya haddaan la wada jirin oo la wada ilaashan qarankan waxa weeye cidlo wax ku maali karaysaa ma jirto. waa tahay cabdirasaaq aada iyo aad baan kugu mahadnaqaya sida wanaagsan aad uga soo qayb gashay barnaamijkeyga. daawadayaal toddobaadkan barnaamijkii daahir iyo dalka hooyo waxaa marti iigu ahaa gudoomiyaha ururka guryasamo ee qurbo jooga deegaanka gobolka togdheer iyo hawd waa cabdirasaaq cali kildhi. aad baan ugu mahadnaqayaa. barnaamijkiina intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. barnaamijkaasina waxaa inoo farsameeyey oo inoo habeeyey oo isku dubariday cabdiqani cabdilaahi cabdi mataan. anigoo daahir ismaaciil xaaji aadan ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinayay. tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabad.